miyaan u qalmaa inaad jeclaato qalbiyahow qof aan aniga ahayn miyaad jeclaatid nafta iyo ruuxdan aad qaybta ka tahay jeclaanshaha naftaada ayaa kaga xaq mudan jeclaanshaha naf kasta oo dunida ku nool waa gabaldhac fallaadhaha quruxda badan ee qorraxduna waa qaar kaga tegay caadka cirka casuuso isku jaango'an waxayna tukube u sidataa una sii gurguuranaysaa gurigii ay ku hoyan lahayd iyo galbeed guntii waxa uu bilaabay in uu ooyo kambadhuursadana meel aan ka fogayn laamida aan wakhtigaa marayay waan yaabay oo waan argagaxay waxaan isweydiiyey maxaa ku kalifay isaga oo nin ah in uu ooyo dareemay in ay jirto dhibaato ku kaliftay in ay ka timaaddo ilmadaa kuluuli weliba si baraad la'aan ah waxa aan bilaabay in aan ku soo dhaqaaqo xaggiisan lana wadaago dareenka murugada ah ee uu dareemayo inta aan si deggan u soo fadhiistay agtiisa gacantayda midigna saaray garabkiisa bidix ayaan ku idhi ha u biqin noloshu ahaan mayso midaad ku dhammaystirato murugo waxaa iman doonta maalmo farxaduhu ahaadaan qaar ina soo jiidha sida daadka oo kale inta uu igu soo fiiriyey laba indhood oo aad u cascas ilin badanina ka dareerayso ayuu hab i siiyey laabtana i geliyey waxaan u bilaabay in uu iga sheekeeyo sheekadiisa waxaan ahaa mid ku nool nolosha teeda dhexe farxadda iyo qosolkuna waxa ay ahaayeen qaar aan ka faaruqin dibnahayga wakhtiga ugu badan waxaan ahaa mid la qaata qoyskayga iyo asxaabta aan shaqada isku barannay waxaan ahaa mid qosla oo farxa sabab la'aan wakhtiyada qaar waxaan ahaa mid ay ka qosliyaan sheekooyin basiid ah oo aanay suuragal ahayn in ay maanta iga farxiyaan ilaa laga soo gaadhayay maalinta noloshaydu waxa ay ahayd sida aan kaaga soo warramay waxaanan ka mid ahaa mid ku nool xorriyadda iyo farxadda ilaa laga soo gaadhayay maalintaas oo noloshaydu waxa ay ahayd sida aan kaaga soo warramay waxaanan ahaa mid ku nool xorriyad iyo farxad aanan sawiri karin intaa kadib noloshayda waxaa ku soo biirtay qof taasi oo igu kaliftay in aan u qoslo darteed wakhtiyo fara badan oo noloshayda ah waxay ahayd mid alleh uu u dhammeeyey quruxda oo dhan taas oo arag ku sakhraamin jirtay lab kasta oo jaanis u hela in uu eego sixri jirtayna il kasta oo daymoota waxa aan bilaabay in aan galo badweyn aan dhammaad lahayn barriguna yahay mid aan dhowayn waxaan bilaabay in aan farxo farxad tan ugu qaalisan uguna qiimaha badan waxa kale oo ay sabab u noqotay inay igeliso dunida farxadda iyo raynraynta oo ah duni ka baxsan khiyaalka iyo sawirashada aadanaha sidaasi si la mida waxa ay sabab u noqotay ilinta aadka u kuluul ee ka dareeraysa indhahayga taasi oo ka turjumaysa hadimo iyo hagardaamooyin aad u daran oo qalbigaygu dareemayo maxay ii siisay farxadda haddii aanay farxaddaasi ahaanayn mid waaraysa jiraysana bardhammaadka noloshayda xaq miyaan u leeyahay in ay noloshayda ka samaysato sida ay rabto kana farxiso marka ay doonto waxaan filayaa in khaladka ugu weyn ee aan galay noloshaydu inuu ahaa jeclaanshaha aan iyada jeclaaday waxaan gallay ballan iyo cahdi aad u adag waxaannu go'aan ku gaadhnay inaannu nolosha ku rafiiqno ahaanana lamaana wadaaga jacayl iyo nolol tan ugu macaan waxaan u huray una hibeeyey wakhtigaygii maalkaygii maskaxdaydii iyo jidhkaygiiba maxaanse ka faa'iiday waa waxba daqiiqada ka hor ayaa la ii sheegay xafladda meherkeedu inuu berri dhacayo miyay awoodi weyday xitaa in ay isoo ogeysiiso iina sheegto ugu yaraan miyaan ahay qof u qalma inay ii gasho sidaasi intaa kadib waxa aan waayey awood iyo tamar aan ku dhegaysto hadalkiisan waxa kale oo aan waayey awood aan ku xakameeyo qalbigayga iyo ilintiisa waxaanan ku idhi qadarin ruuxaad u hayso hadduu qubo qaayahaaga mar buu garan qiimahaaga